walaalow bayaankaas waxaa lagu buriyey waxaan lagu sheegay inuu yahay heshiis xidhmooyin shidaal oo uu saxeexay wasiirka batroolka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kaasoo runtii baalmarsan sharciga dalka u yaala burinayana oo ka hor imanaya xeerkii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu soo saaray 7 August sanadkii 2021 kaas oo dhammaanba hay'adaha kala duwan ee dawladda lagaga xayiray inay geli karaan heshiisyo iyo is-afgaradyo xilliga doorashada lagu jiro intaas ayuu ku saabsanaa waxa sidoo kale dhammaanba hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya mar labaad si cod dheer ah loogu celiyay inay ka fiirsadaan arrimaha noocan oo kala ah oo aanay geli karin heshiisyo caalami ah iyo kuwa ay sharikaad la geliyaan dirkaba iyada oo runtii la ilaalinayo hantida qaran dhaxalka u ah ummadda Soomaaliyeed xilligan doorashada lagu jiro dalka oo dhan waxa lagu foogan yahay sidii doorashada looga buuxsan lahaa isla markaana dawlad cusub ay dalka ugu dhalan lahayd xilligan marka suuragal ma noqonayso heshiisyo waaweyn oo noocan oo kala ah in la galo afayane dabcan heshiiska la galay oo wasiirku uu shaaciyay waa heshiis weyn oo 7 xirmood oo shidaala shirkad lagu siiyay sida wasiirku sheegay in kastoo madaxtooyadu ay warkaas ka soo horjeesatay isla marhaantana ay haddaba cadeysaba wasiirku intuu dhaqdhaqaaq intaan la eeg oo baaxadaas leh oo heshiis inuu ku galo uu ku gaaray dhaqdhaqaaqaas intuu waday wax xiriir ama la socosho oo miyaanay jirin run ahaantii wasiirka isaga looga baahnaa inuu xiriir la sameeyo hay'adaha kale ee muhiimka ah ee dawladda arrintan ay khusayso laakiin isaga intaas oo dhan baal maray markii ugu dambeysay doorasho ku jiray kursigu raadinayay kursigii markii uu waayena dalka Ingiriisku u dhoofay wasaaradda arrimaha dibadda waxba kama wargelin arrintan safaaraddeena halkaas oo Ingiriiska wax war ah kama siin arrintan waa laga warhayay inuu Ingiriiska joogo laakiin xidhiidhadii iyo telefoonadii wixii oo dhan waa dansaday muddana khadka wuuba ka maqnaa markii dambena waxaa lagu warhelay inuu bartiisa Twitterka uu ku shaaciyo inuu heshiiskan galay cid la ogeydna ma jirto wuxuu ku carabaabay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu arrintan wax kala ogaa taasoo run ahaantii aan sali raatoona lahayn qaabka iyo sharciyada heshiis loo galana madaxweynaha kama bilaabanto waxa tayaab kale ay tahay taas waxay martaa process dheer lamana marin processkaas watahay afayeen Cabdirashiid markaad eegtaan qoraal ka soo baxay wasiirka waxa ku xusnaa inuu sida hadda adigu sheegtaba uu madaxweynuhu u gaar yeelay inuu heshiiskan wax ka ogaa waa maxay sababta ku qasbi karta wasiirka inuu madaxweynuhu ku carbaabo qoraalkiisa oo yiraahdo madaxweynaha ayaa igu taageeray ama igu garabsiiyay heshiiskan ka qayb noqdo waa maxay sababta keeni karta in madaxweynuhu arrintaas u leexiyo wallahi waxay la tahay taas isaga weydiiyay isagu ha ka jawaabo mana aha habka dawladdu ay u dhisan tahay qaabka noocaas heshiiska noocaas in madaxweynuhu gacanta la galo maba ahaba marka horeba oo nidaamkan dawladdu sida uma shaqeeyo hadiiba xitaa aan lagu jiri lahayn waqti doorasho oo aanay jiri lahayn dekreetooyin ka soo horjeeda heshiisyo noocan oo kala ah in la galo haddii loo baahan yahay heshiis weyn oo kan oo kala ah in la galo in laga fiirsado cidda lala gelayo la eego la hubiyo golaha wasiirada la mariyo la isla garto waxaasoo dhan bay u baahnayd mana ay dhicin waxaasoo dhan waa wax uu Twitterka wasiirka uu ku ego laga arkay maanta waana wax la yaab leh waana mucjisooyinka xilliga doorashooyinka mar walba la filan karo inay yimaadaan waana taas ta madaxweynaha jamhuuriyaddu mar walba
walwalku kaga jiray oo uu marba dib u cusboonaysiinayay adaha kala duwan ee dawladda mar walba uu la hadlo oo uu u sheego in xilligan aan la geli karin heshiisyo noocan oo kale ah waxaana runaantii aan doonaya halkaa inaan ku daraado raalliga ah madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan looguba soo qaadin heshiiskan aan sharciga ahayn muddadaas hadda uu talinayay waxa uu aad iyo aad u ilaaliyay hantida guud ee qaranka isagoo aaminsan inay tahay tani dhaxal shiilba jil uu gudbinayo muddadaas uu talinayayna ma ay dhicin heshiisyo ku qotoma ama khuseeya khayraadka dalka in ay dawladdu ay gasho aad baa taas looga feejugan yahay weli ma ayan dhicin arrintan oo kale sababtoo ah waxa muuqata inaan u baahannahay in aan u diyaar garowno heshiisyadeena iyo shuruucdeena ku saabsan arrimaha khayraadka iyo habka loo qaybsanayo in mar walba la hormariyo oo aan diyaar garowno halkaasay dawladdu mar walba xoogga saaraysay laakiin laguma degdegayn heshiisyo noocan oo kale ah in la galo waadna garan kartaa arrintaasi khatarta ay keeni karto haddii heshiisyo aan marin habraacyadii loogu talagalay wasiiradu ay qaataan waa tahay madaxtooyadu wax xiriir ama la samaysay markii falkan ama go'aankan uu qaatay wasiirku sidaan kuu sheegayba dee khadadkiisii iyo telefoonadiisii lagala xidhiiri lahaa maba isticmaalayo teeda kale dee safaarad baan ku leenahay ingiriiska oo ay ahayd in protocolian ay joogto meesha heshiiskaas lagu gelayo iyagana waa laga dhuuntay qarsoodi iyo qolal madow baa hawshan lagu diyaariyey ugu dambeyn marba haddii wasiirka uu khilaafay wareegto uu hore usoo saaray madaxweynaha uu kaga digayo hay-adaha dawladda inay galaan heshiisyo inta lagu jiro xilliga kala guurka ama doorashooyinka waa maxay tallaabada xigta ee madaxtooyadu qaadaysa hor tallaabada ugu muhiimsan waxa weeye kani heshiis maaha mana jiro waxaana uu ku buray wareegtadana hadda madaxtooyada ka soo baxday ayuu ku buray mana aha wax xitaa golihiisa wasiiradu ay og yihiin saasuu horta marka hore ummadda soomaalida oo dhan iyo caalamka oo dhan iyo dhinacyada loo sheegay in heshiis lala geliya ay ku ogaanayaan iyo bahda warfaafinta baan ku wargelinaynaa inay tahay heshiis buray oo aan waxba kaga jiraan ah tallaabooyinka kale ee dawladdu ay qaadayso hadda ka hor dhici maayo xilligeeda aan la sugaynaa insha allah biidmillahi alkariim marnaba ma dhici doonto in hanti qaranku leeyahay lagu takrifalo